kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka nolosha oo toddobaad waliba si toos idinkaga imaada xarunta labaad ee TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho. barnaamijka muuqaalka nolosha waxaan idinkugu soo gudbinaa xaaladaha dhabta ah ee ka taagan dadka shacabka ah. hase ahaatee toddobaadkan daawadayaal waxaynu soo booqnay xaruntan lagu magacaabo محمد قعمي artiste mise rugta farshaxanka محمد قعمي oo sidaad arkaysaan goob lagu iibiyo waxyaabaha kala duwan hidaha iyo dhaqanka lacagihii shilinka Soomaaliga sidoo kale waxyaabaha kale badi dadkii hore ay aad u isticmaali jireen aad arkaysaan sidii agabyada ka muuqda dukaanka محمد قعمي bal markan waxaan rabaa in aan wareysi la yeesho محمد قعمي oo nin oday ah in muddo ku guda jiray iibinta agabkan bal waxaan wax ka weydiin doonaa qaabka uu ku helo qalabkan iyo sida bulshada ay u gadato iyo sidoo kale lacagaha shilinka Soomaaliga ah ee noocyada kala duwan uu hayo iyo sida uu lacagahaasi ku maareeyo. محمد قعمي rugta farshaxanka محمد قعمي waxa inooga warantaa agabkan kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka iyo waxyaabaha kale sida lacagtii iyo sidoo kale agabyada kale aad iibiso bal sharaxaad kooban naga sii. horta waxa waaye alaabtan badin waxay ka imaataa gobolka Bay sax marka Kismaayo ana qaaraan loogu keenaa wax badan oo Kismaayo waa nooga imaataa gobolka Bay maal Hudur Baydhabo maaragti shabeellaha hoos meel kasta Soomaali ay joogto ilaa inta ay sheegay tan garow Boosaaso meel kasta laga keenaa anaga wax kasta waa gadnaa waan iibinaa qof alle qofkii noo keeno hidaha dhaqanka Soomaaliyeed noo keeno alaabta wixii horay u tiilay iyo wixii kala wixii hadda la keenay wixii hore u yaalay hatta Itoobiya waxyaalo badan ay Itoobiya noogu keena waa gadnaa meel kasta noogu keena alaabtan. waxa ii sheegtaa waxyaabaha gaarka ah ee la idinkaga keeno koonfur galbeed waxyaabaha gaarka ah ee laga keeno waxaan laga keenaa maaragtay dheelahaas iyo dheriga iyo maaragtay sida dadtan oo cubada oo kala oo biyaha lagu cabo heer baadiyaha ka cabaan waxyaalo badan ameelka geela ameelka loocda waxyaalo badan aan koobmeyn koonfur galbeed aan ugu keenaa sameynta waxaan aad u jeedaan anaga sameyn laakiin keenis waxa waaye koonfur galbeed laga keenaa. koonfur galbeed waxa ay sheegtaa ma qalabkiiyo dhameystiran oo sameeysan idin keenan mise waxyaabihii idin keenan idinka ka sameeyo anaga sameeyno ayaga waa keenan markay keenan wixii kale duuxabeen anaga sameeyno ayaga waa keenan anaga sameeyno wixii dada noo joogo meelaan leenahay haruunan leenahay oo lagu sameeyo wax kasta lagu sameeyo haruun ah ayaan leenahay haruntaasaan ku sameeynaa ilaahayna garabkeena galayna dharkaan gadayna wax kasta wax maanta aan gadayna male wixii adduunyo oo maartay oo wixii la soo gudbay iyo wixii hadda yaala kulli waa gadayna hidaha dhaqanka Soomaaliyeed kamid ah. waa gartay waxaad ii sheegtay in Itoobiya kale dadka ay ugu baahan yihiin dharka hidaha iyo dhaqanka Itoobiya kale hadii waxyaabo saas oo kale idinkaga baahan yahay sidee baad ku heshaan dharkaas hidaha iyo dhaqanka Itoobiya waxa laga keenaa marka hore banaanka qaar inta lagu sameeyaa dharka laba nooc way qaar inta lagu sameeyaa qaar dibadaha ay ka keenaan kuwa inta laga keenay waa iska caadi kuwa dibadaha oo keenana waa iska caadi marka waxa haysanaa maartay fursad ugu weyn haysanaa wadankeena maartay aan isku celinayna wax kasta anaga wadankeena u badan Itoobiya waxay keenaan alaab badan oo kale ay keenaan dada farshaxan leeyahay jiro waa la keenaa waan ka iibsanaynaa wax kasta alaab meel kasta meeshii laga keeno waa gadeynaa anaga. waa gartay waxa ay sheegtaa agabka hadda inta ku yaalay aad gadid hidaha iyo dhaqanka bal adigu intooda keebaa ma aragtay saameyn leh oo badi bulshada ay gataan waxyaalo badan wax aan bulshada aan gadanayn meesha ma bayaala wax bulshada aan gadanayn meesha badan yahay gadashada wax kasta geela waa gataan dharka waa gataan dhilaa waa gataan boqoray dhaclaha waa gataan koorta geel waa gataan oo dheriga waa gataan oo maaragtay aleeshan oo badantayna laga keenay waa gataan oo maaragtay wax aan gadanayna male buumanka Zibari waxa laga keenaa Kismaayo laga keenaa waana la gadaa ma fahanti wax aan la gadayna meesha ma biyaalan dadkii hore
badi way yaqaanaan agabka inta yaalo bal dadka kale dhaxdhaxaadka ah ee aanan ku soo gaarin agabkan oo kale tusaale ahaan markay wax u baahan yihiin sidee baad ugu dhaadhicisaan waxay rabaan sidee macnihii aad ugu sharaxaan tusaale ahaan bahalkan oo kale rabaan dadaan noo imaana oon ka saynin dhaqanka Soomaaliyeed dhan baan ka saynin banaanka dibidaha ilmaha banaanka jiraan oo maartay oo xagga ku weynaaday waa imaana waxaan maxay yihiin marka waxaan leenahay sida hadda koortan oo kale waxaan leenahay waa maartay geela lagu xiraa waa dadkeena hore ayay ku dhaqmi jireen aan leenahay sida hadda lacagtan oo kale maartay idinka ma soo gaarin lacagtan hore idinka heed lacagtan ma soo gaarin tan idinka aad soo gaarteen tan way صح وشلينكي tan way tan aad soo gaarteen Cabdiqaasin maalinteeda la tuuray صح tan waxay ahayd lacagii hore way 10 shilin way waad u jeedaa 10 kan shilin oo lacagii hore oo kamid yahay 100 yaalo wax aan yaalan 100kii kale idinka soo gaarteen kan way midkan kan way kan maanta 100kan maalintaasi neef geel hadaa gadid dharna u gadid badarna u gadid wax kasta aad u samaysid lacaga ka soo horeys wax dhamaanay ma ahayn maantana 100kii aad sheegtay hadaad $1 aad haysatid hal mar suuq ugu soo tagay marka taasna alxamdulillah waa la soo gudbay hadana maanta maartay waqti kale aan ku jirnaa waqtigiisa asiga ahaa kulay nin wal waqtigiisa waa idinka waqtigiin way anaga waqtigeena wax badan oo taariikh badan aan sheegnay wax badan aan soo gudubnay lacagta ay wax gaarayso oo ay qiimo ay leedahay waa soo gaarnay ma fahad marka hadda maanta tan dadkii haday arkaan waa tan Soomaali lacag Soomaali miya way ma aaminayaan marka waa u maartay waa u sheegayna waxaan leenahay lacagtan waagi hore intaas oo guri ah intaas oo adduunyo ah la gaday jiray waxa ay sheegtaa dadkii lacagtan xilliga hore way jooga ah odayaashii ka markay ku imaadaan ka waran dareenkooda marka aad tustid lacagtan dareenkooda sidee buu noqonayaa ma arkay nin dareenkiisa isbedel asoo ooynaa taa qof ooynaa waa arkay lacagtan markuu arkay sax xusuus darteeda intaad ku haysanaa la yiri anigan waxa waa qof kasta wuxuu hayo waa gadnaa meel kasta lagu keenaa hadiina noo keeno maartay waa gadnaa lacag waxa meesha noo yaala lacagta waa taala shilmaad ay yaalo wax aan hadda maanta aan yeelan male shilmaad lacag shilin Soomaali shilmaadkii laga tagay waa hayna kuwa hore waa hayna wax aan haysanin male waxa ay sheegtaa lacagtan halkee ku haysan sideen ku heshaan lacagta dadka isku mid maaha dad qaar waxood waa la dhacay dadna waxood Ilaahay u badbaadiyay dadkii Ilaahay u badbaadiyay ayay keenayaan lacagtaas ay keenayaan shilmaaday keenayaan wax kasta nuska shilinka hadda waa yaala jawaan dana hayna shilmaada ahaado lacag kala ahaato jawaan lacagtan oo kale jawaan aan ku haynaa marka waxa way dadka guriyaasha oo Ilaahay u badbaadiyay noo keenan lacagtaas haysta ma iibsanaya diyaar waaye keenso waa ka iibinana markaas anakan wixii Ilaahay noogu sahal ayaan ka heleynaa waa gartay waxa ay sheegtaa lacagtan bariga hore la isticmaalo jir lacagta shilinka Soomaaliga taya ahaan isku mid ma ahan dadka waxay aad uga cawdaan lacagta shilinka Soomaaliga hadii muddo kooban hadii taal in la jahjahmato bal ka waran tayada lacagtan lacagta tana ka taya badan lacagtana ka taya badan wax kasta tan wax la soo koobi karo ma lacagtan ninkii haysto hadda $100 tana qiimo ku lahayd $100 tan waa u jeedaa Soomaali waagi Soomaaliya yahay maanta deen lagu ma lahayn waagi lacagtan tiili deen lagu ma lahayn maanta waa tan deena lagu leeyahay Soomaali meel alle meeshay joogto deena saar loogu leeyahay bal lacagtan fiiri qalankan gaduudan fiiri arka deena lagu leeyahay tan ka fiiri ku shilin deen lagu ma laha Soomaali sax waagas lacag deen lagu ma lahayn maanta deena lagu leeyahay deentii tan hadda gudmi weyso way hadda maxay kala duwan yihiin midda hadda calaamad guduudana saaran tan sidoo kale calaamad ma saarno madowgaas laga fiirina qalankaas madowga la fiirina madowgaas markay ay tahay deen lagu ma leh qalankaas gaduuduna haduu yahayna deena lagu leeyahay shilinka Soomaaliga deentii tan hadda aan ku jirno hadda waa la gudaa iyo waa maartay waa noo ifinaa tan la leeyahay way marka alxamdulillah Ilaahay subhanahu qadira waxa ka rajaynaynaa barwaaqo iyo bashbash ayaa Ilaahay ka toogayna waa gartay waxa ay sheegtaa lacagtan hadda idinku aad haysaan dadka ma isticmaalaan ma idinka gataan oo u imaadaan waa gataan dadka dibidaha ka imaado gataan xasuus ay u gataan ilmahooda ay tusaayaan caruurtooda ay tusaayaan waxay leeyihiin lacagta aabo Soomaaliya tagtay waa hadii ay idinkeena ay leeyihiin hadii maxay tahay lacagta ma kasay akhri
shilin Soomaali way tana idin keenay Soomaali way shilin Soomaali way tan Soomaali ahayd maantana Soomaali kunkaas shilin aa ka dambeey wadankii waagii hore anaka aboogeyna iyo maartay dadkeena ay noolaan jireen waxaasan ku dhaqma jirnay maantana idinkana doolaraad ku dhaqmaysiin maalintan idinka tan anaka aan isticmaali jirnay wadanka wadan barwaaqay ahayd maantana hadda $100 lagu sii xabad ku taramaysa tan maanta ninkii haysto wax weyn oo ahayd boqolkan ninkii haysto wuxuu ahaa nin taajir ah ayuu ahaa bal ka waran haddii suurtagal ay noqoto in lacagtii hore la soo celiyo lacagtan hadda shilinka Soomaaliga oo kale lacagta dollarka hadda Muqdisho ku soo badato Soomaalida aad ay u isticmaalaan in la joojiyo taa lacagii hore dib loo isticmaalo ka waran taas ilaaha dadkaas siday isku bedeleen lacagtana saasay isku bedeshay ummadii waa isbedeshay ummadii hore ma aha ilmo yaraad arkay waryaa ay ku leeyihiin markii hore aabbo abuu ala dhihi jiray ninka si uu kala way abaay abuu waxa la dhihi jiray maantana ninkii ilmihii yaraa waxay ku leeyihiin waryaa xilliga isbedelay say dadka isku bedeleen ilmihii isku bedeleen ayaa wax kasta isku bedelay wax kasta ayaa isku bedelay marka hadii la isbedelay hada kulay wax kasta dad soo sameeysid xagaaga ka sugin hada man Allah ilaahay xaqiisi ma ogi wax ilaahay keenay ilaahay wax kasta furwa wax kasta waa awoodo leeyahay ya ilaahay awoodo leeyahay wax kasta inuu sameeyo waa suurtagal ilaa kan dadkan hadda arkay umada hadda joogto aan arkay ama dalha joogto ama dibadaha joogto waa isbedel kii ugu ulsa ku jir ummadii waa gartay waxa ay sheegtaa lacagtan hadda boqolka ah kamid ahna lacagii hore tusaale ahaan qof haduu yimaado oo ku weydiiyo aasiiso lacag kilo shilin Soomaaliya ku sina uu ka gadanaa marka xabadii oo kale maadaama hadda aan la isticmaal halka xab markaas sidaan u gadaysid qiimo ahaan ma qaagadaa tan hadda waa 100 shilin boqolkaas shilin waxaan gadaa hadii qof dukaanka ii imaado lacagii hore aan rabaa haduu leeyahay tan waxaan gadaa $1 halka xabo صح $1 aan gadaa tan waa saas oo kale $1 aan gadaa ila tan waxaan gadaa $6 kan shantan shilin $7 aan gadaa marka maxay tahay farqiga u dhaxeeyo midna 5 u gadid midna $1 u gadid say u kala horeeyaan oo dhaqanka u kala horeeyay oo lacagii u kala horeeyay helidooda say u kala horeyso ma faan saas darteed aan u gadaynaa maraan gadi jirnay tan hadda soo raqiistimay 20 kaas shilin $10 aan gadi jirnay 20 oo basaaraddu ma iska jirto oo dhaqaalaha sidii hore ma aha markii hore 20 kan shilin ayaan gadi jirnay 20 kaas $10 oo shilin Soomaaliya dikadaan ka gadi jirnay nin ajnabi doonoo yimaad waa ka gadi jirnay sax oo xarunta inta idinku imaana inta noogu imaaha shilin Soomaali asoo raadinay ciidan daba socdo Shiinaha ha noqoto Mareykan ha noqdo Talyaani ha noqdo kiinta Turkiya ha noqdo maartay dawlad kasta Afrikaanka ha noqdo wax alla wixii noo imaada qiimo ayaan ka sii jirnay marka iyagu sidee ku ogaanayaan lacagta inay lacagtii shilinka Soomaaliga ahayd oo dadka isticmaali jireen iyadoo ku qoran dad isku mid ma ahan dadka ajnabiga ah ee soo doonta sidee marka iyagu ku garanayaan lacagahan kala duwan ilaa iyo 5 qaybood kala ah waxay ka kasayaan lacagtan horta lacagta ayda dhowr nooc ah tan markii dawladii siyaad bara oo dawladda wadanka ay qabsatay siyaad bar markii ahayd wadanka markii la qabsaday dawladda siyaad bar qabsatay tana ugu dambeysay lacag cadam markii laga soo baxay tana ugu dambeysay markii tan ay baabaaday siyaad bar lacagtiisi to mid kale 20 hadda intay ku jirtaa oo soo saaray oo diin la'aan maalintaas ilaa hadeertan lacagtii deynay noqotay maalintaas ilaa hadda laga joogo lacagtii deynay noqotay taada aragteen oo nacda la soo saaray nacda waa taala ayda nafteed laakiin qiimo ma leh tii hadda qiimo u leh oo hadda wadanka anakan aan wax ka helayno oo maartay ninkii noo keenay wax ka helay lacagtaan ay ka mid tahay tan waa maartay meel kasta ay taala
tan lacagii hore waa u jeedin 10 shilin hadda lama arkay ninkii arkana waa la yaabo hadda waxa way wax shil maanta la soo saaray ay ka mid tahay waana hadda meeqasan door sanaynta aday ma dhalanin way adag tahay lacag adag way ma fahant okay waxa ii sheegtaa goobaha kale farshaxankan qalabkan farshaxanka oo kale hidaha iyo dhaqanka lacagahan yeelan oo kale isla degmadan bal ka waran xiriirkeeda in kala dhaxeeyo alxamdulillah wax dhibaato ma jiraan degmadan waxa waaye xamar weyn hadda kule wax dhibaato ka qabna male goobaha kale ka waran oo goobaha kalena saas way meel kasta waa qalabkan waa yaala ilaa bakaara ilaa xamar weyn gudaha meel kasta waa yaala alxamdulillah wixii ilaahay nagu siiyay waa helayna alafkeen ilaahay ka dhigi waa gartay bal markii aan ka nimaano lacagta bal waxaad dhammaan bulshada ku daawanaysa u sharaxdaa bahalkan dhankaaga yaala waxa uu yahay tuwatan doon sax sizibar waytan geedkan sizibar afrikaana soo sameeyay sizibar way qalabkan kor anaga sameeyni sax qalabkan kor anaga sameeyni tan sizibar way qolofka waa geed hoose sizibar way sax ma fahant meeshay ka imaatay maaragti meel kasta anaga wixii farshahan oo ummadda qaadanaysa waa raadinaynaa geedan dambe alwaax waa dalka Zanzibar la keenay waxay ka mid yihiin waxyaabaha dalalka iyo gobolada la keenay qalabkan ayuu ka mid yahay sax marka bahashan oo kale sidee baad u gadaan hadda tan iibkeedii haddaan gadayna $100 $120 laakiin meesha ugu dambeys waa $100 صح maxay hadda faa'iido ah ee leedahay maadaama hadda lacagteeduna ay aad u badan tahay $100 ay tahay waxa way dadka mareenada maartay oo dadka badda ciidamada badda ma faan waxaasay gataan Soomaalida qaar waa gataan kuwa kale oo ayda ka raqaysan waa jiraan kuwa hadda aragteen oo meeshaas dushaas kor ay saaran ay la mid tahay kuwaas oo kale waxaan gadnaa 45 sidaasaan gadnaa tusaalahaan bahaladan idinka sameeya qofka naqshada halkuu ka helaa mise waxaa jira naqshada aad haysataan oo qofka taa uu ka tixraacayo anaka haysano naqshada anaka haysano dada noo joogo oo wax soo bartay ayaa noo joogo wax alla wixii noqotoba nin sameynaya joogo shaqadiis ay tahay habeen iyo maalin shaqadiis ay tahay ajoog oo ku shaqeynay shaqo kale aan haysan subaxii waa fadhiisana meesha uu fadhiisana haddana habeenkii ka soo hooyana bal bahashan hadii aan u soo laabto ka waran isticmaalkeeda markaan kalimaano gadashado kale haatan ma sidii la rabay ma loo gataa mise waa iska macmal oo waa soo dhacayo marmar la gataa wallahi wadanka sidii hore ma aha markii hore aad u gadmi jireen alaabta badeecada waa gidmi jirtay oo yar hada qulays iska jiro qulayskaasna ilaahay ka sugeynaa laakiin kulli hadda shaqadayna waa ilmahayna ka korsanay haddana hooshiyaan wadnaa wamaadsan tahay waxaad ii sheegtaa sidoo kale agab badan ay yaalo waxa ii muuqdo xaarinkii oo badi bulshada ay aad u garanayeen ilaa haatan la isticmaal xaarinka bal xaarinka ka waran isagu ma kii bariisamaadkii la isticmaali jiray mise waa mid ka duwan qaabka maadaama la farshaxmay waa tan masaf way xaarinkana waa ka say xaq u yaala xaarin masaf la kala yiraahdo xaarinka waxa waa geedaha xididkooda maarid lagu sameeyaa tan cawda lagu sameeyaa sax midna cawda lagu sameeyaa midna geedaha maarid ilaahayna siiyay xididaha lagu sameeyaa xaarina la leeyahay tan masafa la leeyahay maxay ku kala duwan yihiin xaarinta iyo masafta waa laba qayb ay kala yihiin xaarinka waqtigii hore masafta dhaxdaana la arkay sax xaarinka weligiis waa jiray لكن استعمال أهان اسكو مدواء استعمال أهان اسكو مدواء صح ها واحد إسلام مالي لكن هذا الصومالي هذا وقت هذا الجو وحا أبدا مصفت قعمي بقلال قفانا الداوانية إلا حارنت هذا وان شاقينا وحلقة يوضاتك إني سنقرنين حارنت مصفتن إيه سنقرنين وحالو استعمالا إيه سنقرنين بل محالو استعمال حارنت مصفتن حارنت وحالو استعمال بدرك صح بدرك واكي badarka ama galeeda ha noqoto ama maartay haruur misigida ha noqoto ama qamidiga ha noqdo ama bariiska ha noqdo
wax alla wixii yahay marna waxaan ku samaynaynaa kaa u jeedan oo saan oo kale aan ka dhigaynaa waa taas saasaan ka dhigaynaa masafta mar saasaan ka dhigaynaa waa kana marna saasaan ka dhigaynaa waa masafti waay hadda waxaa qalabkii oo dhan loogu talagalay sida hadda mindidii oo kale dhammaan bahalkii caanihii ay ku cabayeen waxa dhan way ku jiraan asaasay ugu jiraan sax marka waxaasaan ku isticmaalnaa marna haddaa rabtina badaraad ku samaysanay wax kastaad ku samaysa bariiska wax kasta adduunya oo maaragtay wacdaan burkaad ku shubanay wax kasta burka naftiisa hadduu bahal ku jira bahalka waa loogu saari karaa wax kasta anfacaad weyn way waxaa loogu talagalay qashinka oo kale iyo boonshada in laga bixi boonshada iyo baxalka iyo wax kasta in laga bixi laga saar aan loogu talagalay haddii farshaxan ahaan loo noqdona saasaan ka dhigaynaa waa farshaxan ahaan farshaxan ahaan waay darbigaa la suranaa marka intaasoo qalaba meesha yaala tan waa koortii geel tan waa dhiishi tan waa koobkii kan waa kii ahaa ii sheegay kiinta bilaawi marka saas way warana inuu ku jiro maleeha waran kuma jiro qaar warana ku jiro marka saas way kan waa mindi way mindi way tan marka hadda kan waa qaab farshaxan ahaan u samaysan yahay isagoo caadi ah hidaha dhaqanku ku samaysan yahay isagoo caadi ah ma yaala oo dadka waa yaala asoo caadi ah waa kana kaas waa oo dadka rabaa inay isticmaal way kaasna waa loo isticmaal way qiimo ahaan may qaagada marka qiimaha kaas $5 la gadaa kan $15 kana ka qaali badan hidii dhaqankii kumbaleeto way marka kan $15 la gadaa kaas $5 la gadaa marka kaas waxa way qof kasta gadanaya oo guriga wixii guriga ka kooban waa la isticmaal way kan waxa way ninkii tabartiisa oo maartay oo gurigiisa sharaxaad la rabo ninkaas meel dhigana caadi way waa gartay bal waxaad ii sheegtaa sidoo kale waxyaabo far badan oo hidihii dhaqankii ah oo bulshadan ay aad u garanayaan dukaankaaga ka muuqdo sida dhiisha caanaha lagu shubto kale waagi horena aad loo isticmaali jiray haatanna dhif dadku ay isticmaalaan halka miiga mise baadiyaha aad looga isticmaalo bal ka waran iyaduna dhiisha hidihii dhaqankii way ka mid tahay iyadoo caadi ahna waa haysaan dadka waxyaalo badan ay isticmaalaan kurta bunka waa la isticmaalaa ameelka geel looda waa kana geel waa yaala dhiishi weynado caanaha lagu ruuxo oo maaragtay waa taala wax maanta meeshan ka maqan male sax ishaada ku macalina wax maanta meesha ka maqan male wali waxaan sii rabnaa wali dadaal kale inaan ku sii darno laba rab inaan ka dhignaan rabnaa marka taas taan u baahanahay wax meesha dharkii hidaha dhaqanka dharka baftada cad oo maartay wax kasta maanta wixii dukaanka oo wax koob maayo ma hal shay ma meesha hal shay miyal salahan waxyaabo waxa jiro oo yaryaroti ah oo ka maqan oo sida badda laga helo dhagaxyadii waxyaabaha soo kale waa la hadda waa taas fiirso salahan maya iyaga ku yeelaan oo kale waxa laga yaabaa mid inuusan ku yeelan hadii qof dalabaad oo yimaado oo ka dalbado qofkaas sidee ugu heshaa taas soo qabo saqafa liiratan حبذا كلها حبذا توا سقف مدفع عن كان كاس مد نوراي كان اسكدا في مد نوري سكن تن سقف وي صح سقف ليرا waxa laga keena barya laga keena saqaf leyra kan farola leyra leyra صح kan waa farola leyra farolaha muxuu yahay marka farolaha waxa way badda ku jira sax hada qiimihiis $1 aan gadna kaas buumagadidka soo qabo mid fiican soo qabo buumagadidka soo qabo waa iyagii oo maaragtay bahal aha bahalkii laga saara dhulka la geliya dhulka lagu duuga bahalkii moorta laga dhiga markii kadib waa la dhaqa biyaha lagu dhaqa asoo nadiifa hala keena asoo nadiifa la keena waa kana fiicana waa kana fiir buumagadida $2 aan gadna xabadii sax buumagadida leeyahay kaas kan asagana farola leeyahay farola weyn farola kale waxay badda laga keenay keenkaas farola waa asagan waa farola
bahalka ها فرولا ليرة waxa ku jiran waa la cunaa gaalada waa cuntaa waxa ku bahalku ku jira waa la cunaa kan hadda bahala ku jira bahala ku jira صح hadda waa ka baxay bahalku ma jira hadda waxa ay sheegtaa maadaama hadda kan baddi ay ka soo qabateen oo bahalka ay ka bixiseen ma isku daydeen in isaga naftirkiisa aad si artist ahaan u sameeysan hadda waaba sameeysan yahay kan hadda artist ma ahan waa sidii badda looga soo bixiyay badda laga soo bixiyay isagoo artist aad sameeysan sida qalabkan kale u sameeysan waa la nadiifiyay meesha soo ninkii u yimaado saas uu ku gadanaa mid kale waraab dil ay dhahayno jiro mid kale waraab dil ay dhahayno jiro adiga qalab meesha wax koob maaye meesha ma yaalaan waa gartay waxa ay sheegtaa gacmay imisasan ayaa ku guda jirta iibinta agabkan waqti aan wada waqti badan aan wada ilmihii ani aan ku kuriyay aan ku dhalay adiga waa ka weeyeen alxamdulillah ma sha Allah dad haysta wiilkaygi gabdhaheedu waa sidaas oo kale alxamdulillah waa gartay bal haatan suuqyadii isku mid ma ahan bal ma ka heshaa nolol maalmeedkaaga nolol maalmeed alxamdulillah waa laga helaa nolol maalmeed ma laga waynay nolol maalmeed waa ku haysanaa aad iyo aad aan ugu haysanaa ka waran kobihii hidihii dhaqanka iyaga naftirkooda waa kuwaas waa ayaga kuwana waa kuwaas ayaga waa kobihii hidihii dhaqanka kuwana waa kuwaas watalbaru bay leeyihiin sax meesha wax ka maqan male wax ka maxaa laga sameeyaa marka kuwan maxaa laga sameeyaa taayirada baabuurta way sax kaasna maqaarka geel way sax marka gadashada ka war hadda yimaado oo gato dad ma ahay dibidaha ka imaadaan maartay waqtiga kan waxa way dhiiqada iyo maartay waqtiga dhiiqada socoto oo maartay dhiiqa leeyihiin kuwaas markaas la qaadanaa sax dhiiqada markay leedahay la qaadanaa kuwana waxa way odayaashay qaataan ayaga waxa way saliida la mariyaha ma faan saliida la mariyaha sax marka okay way صح meeshan wax ka magan male qiimaha ka waran waa imise qiimaha kuwan tan hadda kobaha u jeedid 40 way $40 صح kuwana $10 way $10 kuwana qaalisan kuwana ka qaalisan waana la isticmaala dadka odayaasha isticmaalaan lugahana aad ay ugu roonyiin aad lugahana aad ay ugu roonyiin aad lugaha saliida la mariha wax kala luujiti iyo waxaas lama mariyo saliida la mariha lugaha difaacooda way wadaxna kaga ma soo galis caafimaad ahaan wax kasta waa aad bay u anfacaan ilaa kan dadka hadda ma oga haday ogaan lahayn wax kale ma gadan lahayn kuwana ninka oo baadiyaha oo reer baadiyaha oo maaragtay oo ama geel ama la jiro ama maaragtay beeraha iyo baxalka iyo dhulka bahalka leh maaragtay aaday u anfacaan صح baxalkaas naftiisa hadii maartay kuwan shiirkood waa shiirayaan kuwan taayir waad ogtahay shiirkeed baxalka uma roon ma ogolaanay waxaas shiiray iyo waxaas uma ogol marka kuwan wax taray leeyihiin ayagan dhinaca oo baxalka xagiisi oo dhinac oo maartay roobta xageeda roob haduu waa iska soconayay roob haduu yimaado waa mahadsan tahay maxamed gacmi aad u mahadsan tahay waxaan jeclahay in waraysiga aan soo gabagabeeyo su'aasha ugu dambeysay aan ku weydiinaa waxa ay tahay maxaa baaqa mise maxaa fariin ah oo aad u diraysaa dhammaan dadkii joogga ahaa iyo dadka kaleba daneeya qalabkan kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka maxaa baaqa u diraysaa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta meeshay joogto waxaan leeyahay baaq idin diray horta waxyaalo badan oo hadda lagu dhaqmay ilmaha naftooda dhibaato ay u keenayaan sida hadda maaragtay oo kiinta ii sheegay macdankaas oo ilmaha caanada lagu siinay waxaas oo caanada lagu siinay ilmaha waxa u roon inaad adii oo geedka la qoray caana la culaayo la sameynay ilmaha caana lagu siiyo dhiish caanaha looga shubo ma fahanti xeerada in maartay raashinka lagu cuno ma faan antaas ayaan u sheegay waxaan kale qashinkaas kala ka feejognaadaan leeyahay dhibaato udur iyo bilaayi iyo wax kasta waxaasay wadaan qaadadaas meesha qaadadka fandal gado
hangaraf gado fadal gado waa isku meeshii qaadadii leeyahay hangaraf ay leeyihiin koonfur galbeed hangaraf ay leedahay maqaalana waxay leeyihiin dadkana waxay leeyihiin ii sheegay qaada dada dhahay waa hagaag daawadayaal guud ahaan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka muuqaalka nolosha oo toddobaad waliba si toos idinkaga yimaada xarunta labaad ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaynu soo booqanay dabcan sida daawateen xarunta Maxamed Gacmi waa farshaxanka Maxamed Gacmi dabcan idinkaga muuqdana waxyaabo fara badan oo hidaha iyo dhaqanka kamid ah guud ahaan barnaamijka halka ayaan ku soo gabagabeynayaa anigoo Muqtaar Cabdi Aadan ayaa idin soo saaro halkaan idin kala socodsiinaya Cabdirashiid Sandheere ayaan kuniko jira ugu mahadcelinayaa dhanka duubista gacan weyn iga siiyay intaynu barnaamijkan kiis xiga dib aynu u kulmi doono daawadayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh